khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa weli taagan iyada oo isku dayo la sameeyey ilaa iyo hadda aanay hirgelin haddaba aragtida khilaafkan iyo sida loo xallin karo waxaa stuudiyaha ila jooga xildhibaan cabdiraxmaan xaaji aadan ibbi oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee madaxweyneedkoodu dhammaaday waxyaalo kala duwana dalka ka soo qabtay ibbi oo kusoo dhaweynaya marka hore intaa kadib aragtidaada muxuu salka ku hayaa khilaafkan u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare rooble بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أنا قلت ما أركب ده خلاف وين أو مدحونا برامج كل حيو شر أساسا وشيء بني آدم كان عربي الكواس قليلا وواحد كله إيين سام تايم لكن أنا ضد وضع شقيه والشقة نبأ ولي بني آدم لما عملها يضل إيضاء لما عملها ولا مروان مركز قاركود إني تمادو إن ما تقارن وحياة قاركود سلوايو وسيل لو تلاقي يسود عن مرة ده تمادنا ما تقارن ويلي والد كي سبب واسكو قبطان مارت aragta iyada laakiin waxa dalka u baabi'i karo ama u burburayo ama wax u noqonayo qaro personal fikrad ahaan baqab habeeraatay cabdiraxmaan muxuu yahay khilaafka ka weyn ee dhici lahaa in madaxweynuhu yiraahdo waxaan shaqadii ka joojiyay ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaarihiina uu yiraahdo madaxweynihii hore wuxuu doonaa in doorashadu sidoo rabo ay u dhacdo haddii kalena la joojiyo horta runtii moogta hadalka dulmeerku waa doqon magaratay Soomaaliya tiraahda inta badanna Soomaalida waxa aad ugu yar waxa la yiraahdo in dhow garadka mostly waxa aad noogu badan mataqaanaa dadka aragtida ka fiiriya meel dhow oo u arka waxa qiyaasta markaa muuqda xaaladda meeshay ka murugsan tahay tafaasiil badan ka bixiya cilada jirta ugu weyn hadda maanta jirta waxa waaye madaxweynaha iyo prime ministerka isma aflagaadeyn karaan oo procedures baa jira iyo sharciga waxbaa jira laakiin aragti lagu kala duwan yahay waa la iskaga sheegi karaa madaxweynaha waa ninkii magacaabay prime ministerka qodobkaa dhahaya article 9 kaa dhahaya oo u dhahaya mataqaana dastuurka in madaxweynaha uu magacaabayo wasiirka koowaad kabacdina uu ansixinayo golaha baarlamaanka isla markaa haddana nomiki revoke waay haddana hadduu u arko inuu shaqadiisa ka soo bixi waayo xilka uu ka qaadayaa kadib markuu horgeeyo golaha shacbiga ay ansixiyaan xilka qaadista mar hadday aragtidu saas tahay qofna qofka kale kuma xadgudbi karo ma baarlamaanka xil ka qaadaya mise madaxweynaha xil ka qaadaya marka hore madaxweynaha hadduu soo jeedo yidhaa ninka waxaan u idmaday ma aysan fulin isaga toos uma qaadi karo wuxuu geynayaa baarlamaanka baarlamaanka markaa cod oo mataqaanaa kalsooni kala noqoshaha ayuu samaynayaa khilaaf ma jira mise ma jiro waa su-aasha aniga taan kuu sheegaya aragtidaaday ku tahay in mataqaanaa haddii mogta uu dab kaco sidiisa hadda ilaah naguma keeno hadduu qolkan dab ka kaco laakiin aniga ay idhaahdo anoo lisoo waca layidhahdo war meeshaad ku jirtay dab baa ka kacay layidhahdo hoogii baa dhaco guriga o dhan baa gubta daa idhahdo iyo adiga haddaad iga daba hesho tiraad may mara meesha taalaa nin sigaar ku tuuray ay gubatay laakiin dabki waa kacay dabkii waa kacay laakiin sa aniga u sheego ma kicin marka sida dadkay u sheegayaan khilaafka uma jiro khilaafkan waxa waaye waa aragti lagu kala duwanaaday labada hoggaan ee qaranka khilaaf soo kala dhex gala madaxweyne iyo ra'iisul wasaare kan ugu sarreeya garaaf ahaan maxaad ku cabiri kartaa ka ugu sarreeya waxa waaye ku tusaaba intaad wadda joogtay ood ka shaqaynaysa universal dhowr madaxweyne dalka soo martay cabdiqaasim soo maray cabdullahi yusuf soo maray sheekh shariif soo maray xasan sheekh maxamed soo maray maanta waxaan joognaa maxamed cabdullahi farmaajo soo intaasna prime ministeryaal bay la soo shaqeeyeen wasaarayaashii la soo shaqeeyeen khilaaf baa dhex maray waxayna ku dhammaatay in lagu kala tago oo laisugu geeyo baarlamaanka khilaafka ugu xun ee soo mari kara dalka waxa waa khilaaf keeni karo in dalka prime ministerkiisa laga qaado jagadiisa ee laga bixiyo hadda mataqaanaa ma gaarsiisana meeshaas bas u gaarsiisana laba shayba khilaaf hadda gaarsiiyo madaxweynaha wuxuu awood u leeyahay hadda yiraahdo waxyaabihan kuu idmaday waan kaa nusqaabiyey way soo ma arrintaa markay saas timaadana prime ministerka shaqadii waa wadaa shaqadii ila shaqooyin badan baa loo idmaday shaqooyinkii marka laga nusqaamiyey ama laga hakiyey unbaa laga wada hadlayaa taas markii la soco haddana aan filaya inay dhammaatayba waan aaminsanahay xilligan madaxweynuhu ma dhimi karaa awoodda ra'iisul wasaaraha of course shalana ku idmado waxyaabaha qaarkood inaa qabatid darad markii uu madaxweynaha uu imaanaya baarlamaanka asagaa yidhi waxaan u idmaday prime ministerkayga inuu siiyo mataqaanaa wado madaxweyneedkiyaa dhammaaday dastuurka dhiga 4 sano inuu madaxweynuhu yahay iyadoo laga soo bilaabayo maalinta la doortay dalkuna uu leeyahay xukuumad xilgaarsiina oo dastuurka 103 dastuurka 103 wuxuu ku dhahayaa xukuumad xilgaarsiina oo keeni karta ilaa prime minister kale ka imaanayo ayuu sii wadaa waay horta fasirada ka hadlay hadda ummadda waa u akhrinayna waa sida good asaga laakiin madaxweynaha
ما أفرتي سنة وين دمعتي أود شرعية سيناي أنا كوسيناي بركي هذا أفر سنة دمعته إنه أود ولا إنه حكومة يرجع الزاريه وأودي كده أود كوسيناي مياد بدشيني كمل إني ما كبح ماشي وجوه برافو أنت وجوجو أو لقى صوت دورنايو أما أسكت لقى دورنايو أما مدحوينك لقى دورنايو أو لقى دارنايو ولي وحلك كوريجينايو هوديسي وليه سيدي وقبنا تليه عيدك جودة قرن كواي سفير ردي مقابلها magacaabistii uu sameeyay daraad soo adiga iskool Brazil aan joogin universal baa tahay soo garaadooyin ma bixineenin garaadoos ma falsa aw jarnaalada u xirnay iyo marka awoodiisii sharciga uu leeyahay awoodii sharcigeed waa u taala taamku waa dhamaaday laakiin waxa la sugaa fiiri ilaa madaxweyne bedel baarlamaanka hadda ani aan ku jiro ee federaalka wuxuu naga rabaa 27 December bishii hore way sanadka hore Soomaa 2020 ilaa maanta mishaar ka qaadanaa ilaa maanta aan joognaa xilkii baan wadnaa guddiga joogtada wali waa shirayaan guddiga baarlamaanka wali guddiga baarlamaan way maxaan ku nahay waxaan ku nahay dastuurka waxaan ku nahay ilaa baarlamaanka laga keeno oo laga dhaariyo oo baarlamaanka loo bedelo laga keeno وسعر برنامج. فكما دحوينه أوديسي شرعي أيو هايستا والله ماذا سيدا فرتسانو كتريكوتينتا أورانيس أف سوماليغا بريها الأفتهميي رنتي مكتي كيبستاودا مكتي هدي باش الكيبسيو أنا فارح مرتيرا سان يرما أنا مرتيرا دقع دان قاتيبا دقع دوعوكينو يالا كيبسين باشا ما سمع يالا كيبسين وعن كودا مدحوينها وقت يسدمادي marka la dhahayo haddaad adigu qirsantahay inuu madaxweynaha waqti ka dhamaaday uu isku jiri karin bilaa Soomaaliya therefore taliye guud ee ciidamada qaranka sidii ma therefore xaalad degdeg dalku ma soo rogi karo therefore prime minister ma jiro prime minister because prime minister wuxuu ku jiri karaa xalan waa ka hadlay arrinta ayada mathematical methodology oranayo if a is equal to b b is equal to c c must be equal to a Soomaa hada ila eeda iyo c-da waxay isku mid ka noqon karaan haday siman yihiin Soomaa b iyo eeda Soomaa waxaan ka rabaa marka haddaad tiraahdo alif wax ma leh hadan wax buu leeyahay adiga iskuma keenin kartid inaad ogolaatooda qaadatid madaxweynihii ma jiro prime minister golo wasiiraha jiro iyo baarlamaana jiro hada ma yasiir ma soconayso dalka madaxweynuhu leeyahay official waaye laakiin ninka mucaaradka ah ma ninka mucaaradka ah ama opposition baan dhaho oppositionka xaraan ma qofka waa waxa mucaaradi karaa laakiin aftahanada si shacbiga loo qanciyo si shacbiga wax loogu sheego Cabdullaahi wuxuu qofka oranayaa madaxweyne ma jiro لكن شعبي يقولوا به إن دولار ما إنه مدحوني يجرو وسفير ذا قابلايو أو تلي جودي هاي وجرنا ما أسواف جينا عرب أي يقول استاجر شعبي كان الله هذا يعني هذيك شعبي أنا والله هذا أنا والله هذا أيجوا حيلين مدحوني مجرو وقت يسوى بعده حتى إسلا أيجي وهم بليين يعني nimankii uu madaxweynaha janarada u xiray korneelada u xiray kabtanka u xiray ay leeyihiin hambalyo shakhsiyada haysata oo adiga xildhibaano ah oo dabcan aad ula jeedaa sidaan u fahmay xildhibaano iyo maya iyo wasiirada iyo mataqaana generaalada iyo dad mataqaana hadda xil aan haynin oo lag musharaxiin ah oo shalayba dhahay habeen radaa marxaatiga waa joogto waa duubaysay nin dhan oo mas'uula oo raba inuu dalka madaxweyne ka noqdo ayaa wuxuu yiri ciidamada waxaan ka codsanaynaa inay iscasilaan inaad ciidamada markay iscasilaan سو ما أذن أرنتي عمر عرتقال الله يرحمه جنرال فردوس الله كورابي برايم مينستر ويركو كلا درسمة بيلي إن جبهتها اس دي يو اس دي اف اس ان اف اس اس كل اس ان سي هذا وكو يري صدق سنة ما تلدا لا كوفينا سما او ان ما تدبكي نغاري انكو سميننا hadii tiisa la qaato marka ay caadifadaas ay gasho ciidamada qaar kamid ah oo ciidamada ay aadaan maanta waxyaabay ugu tilmaameen mataqaanaa badbaado qaran iyo ugu tilmaameen ciidamada maanta dagaal galaan ee magaalada gubaan oo la bilaqaysto oo jabhada la aado soo noqon mahayo inaan shirarkii u noqono Embagati shirarkii Embagati shirarkii Addis Ababa shirarkii mataqaanaa aan ku geli jirnay Tigreega ay nagu maamulaan gabdhaha inuu noo yimaado in xamar soo fadhiisto inuu na maamulo inuu gabdhaha naga mataqaanaa habeen walba loo geeyo soo saas ma noqonayso ogolaarin inaad hortaas marka nin raba meeshaan ku cadeena bas nin raba inuu jagada quru heli karo haddii heer wasiir gaarsiisan tahay oo levelada madaxweynaha ma aaminsan inuu gaarayo laakiin hadduu wasiirba gaari karo waa ka xumahay saaxiibkay niman golaha wasiirada ku jiri jiro laakiin inuu yiraahdo ciidamada iscasiil uu yiraahdo inay noqoto in dalka uu burburo oo shir la galo shirweyne la keeno aftahanimadiisa la aado shirweynadaas uu ka soo dhaxbaxo inuu bal almiir dawladda la dhisaayo uu wasiir ka noqdo oo xubin ka qaado ila si kale jaga kuma gaari aad ma astaxil laban ibi waxaana hal meel iswaafajino dastuurka qodobkiisa dhahaaya mudaxileedka madaxweynuhu waa 4 sano oo ka bilaabata maalinta loo dhaariyay xilkan iyo qodobka hadda 103 ee hadda aad hor u taabatay ee ah xukuumadda gaarsiinta ah haddii 4 sano lagu xadiday awoodii sharci ee madaxweynaha
sidee u dhihi karnaa madaxweynuhu wuxuu leeyahay awood iyo sharciyad la mid ah muddada 4 sano ee uu haysto xitaa hadduu xilka ka dhamaado maya waxaan rabaa inaan kaa saxal shay madaxweynaha maalinta la dhaariyo ilaa ay maalinta 4 sano u dambaysa maalinta ugu dambaysa la gaaray ayay ku eg tahay meel dastuurka ma iga soo saari kartaa waa kubadda waa tuseenahay muddo 4 sano ah ugu qoran maya muddo oo ka bilaabanaysa maalinta la dhaariyo 4 sano haynaya duruufaa yimid dabaara dhacday dagaal baa dhacay doorashadii baa dhici weysay maxaa ku sameynaya baku ma imaanayo kolleeto ma imaanayo position bannaan madaxweyne ma bannaanaanayo caawa ilaahay ma keeno laa qadar allah haddii caawa dhacdo inuu madaxweynaha dhinto markaasoo marka laga hadli karo la dhihi karo 30 beri within 30 days or 45 days oo waxba ha noqoto hal madaxweynaha lagu doorto laakiin madaxweynaha nool caafimaad qaba wanaagsan oo taliya guud ciidamada qalabka sidee ah isla markaana ama taqaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in la dhaho iskaga soo bax guriga ijaar ma moogta ijaar laguma jiro doorasho ku yimid doorashadii uu ku yimid 4 sano markay dhamaato duruufihii dhacay intii korodhay xasan sheekh maxamuud waa u kordhay Soomaa annaga dawladda annaga sheekh Shariif sheekh Axmed waa u kordhay Soomaa marka kuwaas waa kordheene kani asaga xogaa yar ma yaa misal fahmay waxaan ka hadlaa laakiin shaqooyinkii iyo doorashooyinka wareejiyay kan waa socdahay kan waa socdaa isagana madaxweynaha doorashada ku dhagan alle maya soo doorasho ugu dhagan aniga xasan sheekh maxamuud waa kana ra'iisul xasan sheekh maxamuud madaxweynahayga Soomaaliya hadade maalintii ugu dambayso doorashada gal habeenka ninka aan la kulmaanay asaga waa 7 boqol waa socda laakiin ra'iisul wada shaqada iyo golaha xukuumadda Soomaaliya no way madaxweynaha dhinac ka waday oo talada guud Umar Cabdirashiid uu qaadanayo madaxweynaha ka iimaanaysa ma in sheeg meel xasan sheekh maxamuud kaga fadhiiso leeyahay aan mundulaan ku jiraay waxaan joogaa mataqaana liido Umar Cabdirashiid adiga madaxweynaha fadhi last minute habeenkii doorashada ay dhacayso madaxweyne khayr Allah xasan sheekh maxamuud asaga ayaa waday hoggaanka dalka asaana taliyaha guud ciidanka qalabka sida isla markaana asaga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Umar Cabdirashiid prime minister ah shaqada ee loo idmaday ee howlwadeenka uu ka ahaa umbuuday and the same thing Maxamed Xuseen Roble engineerka khayr Allah siiyo shaqadii wada laakiin waxa soo baxay madaxweyne aad tir sharciyadu haystaa shaqadii uu ka joojiyay ra'iisul wasaaraha warqadda iyo go'aanka sharci ma u aragtaa madaxweynuhu of course markii madaxweynaha fiiri shaqadii wada ma tahay no mini revoke adigu u diiday madaxweynaha dastuurka duu dhahayo asoo magacaaba adiga ku dhahayo dastuurka boqornimo isma qorna hore ugu socon beerta boqornimo isma qorna inuu magacaabi karo shacbiga in been loo sheega ma marka ra'iisul wasaaruhu doorasho iyo arrinteeda hadda ma qaban karo waa qaban karo fiiri waa laga joojin waa ilaahay madaxweynaha ka jooji waana qaban karaa soo faji Cabdullaahi wuxuu qabanaa haddii barnaamijka loo sheego laga wada hadlo 6 madaxweynaha tii wadanka hadda waa soo wada degeen maanta ugu dambeysay mataqaana nabadoonkii guud ee qaranka Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareed waa yimid shanta madaxweyne gudoomiye gobolka Banaadir ku dar ilaa annaga madaxweyne gobolka Banaadir waxaan ka rabaa shaqadii bay u yimaadeen shirkii bay u yimaadeen waxbaa wada socda wada hadallaa socdo mataqaana waxbaa isdhaafaya wax allaal wixii la isla yiriyo dhan waxaa ka soo dhaxbaxayo in xalay dhalay laga noqdo adiga remuduga ta umarayna laakiin taasaan kuu sheegaale wixii hadda socoto in neefka arridabada laga feedo oo la caddeeyo la yidhaha waxaan khalad ka dhacay saari u dhacday laba shilaa lagu baaqay ra'iisul wasaaruna mid uu ku baaqay madaxweynuhu mid uu ku baaqay keebaa sharci la qabto horta bar kasta madaxweynaha sharci ah ha khaldame ka ra'iisul wasaaruhu sharci ma maya anigu kuma dhihin adiga fiiri Cabdullaahi anigu waxaan ku iri madaxweynaha hay'adda ugu sarreysa dalka maya mise ma yaa sharci horta maya aan ka wada hadalno horta aniga adiga maya horta aan ka wada hadalno madaxweynaha sharci maya mise ma waa qodobkaas maya kama soo tegin hay'adda ugu sarreysa dalka maya mise ma oo sharci ilaaliyaha weli according to the constitution bravo hadduu saas yahay haddii labadooda isqabato oo yidhahdo sharci anaa shirki maanta qabana hadduu yidhahdo madaxweynaha looga dambeynaa marka madaxweynaha sharciga kana maya aniga kuma dhihin waxaan ku iri madaxweynaha looga adiga sida mucaaradka waxaa ula jeedaa wariyada fiiri waxaan ku sharaxa haddii waxaa tiri dastuurka waxaan ku iri hay'adda ugu sarreysa dalka ee sharci ilaalinta qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ha kala leexanin way farsama dadkana shacbigana dad u tusi khalada madaxweynaha prime minister laba shir ku dhawaaqayna kee la qaadana khalad waay wariyada waxaa la rabaa bugta si oo si islaaxa artada ku dhamaysana waxaan rabaa kuu sheego waxaan kuu sheegaa haddii maya uu madaxweynaha ku adkaysto yidhaa shirka waa qabanayna shirka madaxweynaha waa baarid asaana u sharaxaya dadka oo iskugu yeeray oo shalay madaxweynayaashiisa dowlad goboleedyada ahaa iyo prime ministerkiisii asaga u magacawday asaa maslaxaysanayo asaa iskugu gaaray reerka meel buu wada aadaa fiiri qayaadada ilaha cayibayba waa la kala dambeeya haddii adiga guriga aad qayaadadiisa haysatid gabadha booysada guriga kaaga shaqayso iyo wiilka adiga aad dhashaa curadkaada ah aday kaaga dambeynayaan horta may fahanta adiga may fahanta intaas
labadiina marka isma qaban kartaan waa in lagu kala dambeeya aragtida wanaaggeed iyo quruxdeeda oo dejiyad iyo qaado isla gurigeed laakiin ila shacbiga aniga markasta shacbiga aan rabaa inaan mataqaana lamana habaabin asalkay kaas waa bis aada u maasanta laga soo bilaabo maalintii madaxweynuhu go'aanka qaatay uu shaqada ka joojiyey ra'iisul wasaaraha tilaabo kastoo ra'iisul wasaaruhu qaado maxaan ku micnayn karnaa oo arrimaha doorashooyinka la xiriirta maya tilaabo kasta oo tilaabo sharciya mase sharciyadii sharciga fiiri ha qaldamin madaxweynaha soo intuu baarlamaanka yimid soo ma dhihin injineere maxamed xuseen roble prime ministerka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaan u idmaday inuu shaqadan ii wado soo ma dhihin waa kala soo noqdo shaqada ii wado ma dhihin very good shaqada waa socotaa asana wuxuu u idmaday guddiyadii doorashada ee uu la howlwaday waraa ka dambeeyo shaqada doorashada wadaa ku eri waa la soo kala celiyey soo maha adii xalay shalay doorasho dhacday ma aragtay xamar maya weli doorashadii waa taagantahay waa stagnant markii la soo celiyey kadib waa dhacday ismaaya ka dhacday ismaaya ka dhacday laakiin stagnant waa xamar anaga xamar aan joognaa mogtaadi horta xamar aan joognaa maya dalka dhan horta dalka waa ka dhaceysaayo adba dalka waa ogtahay dalka maya waxaan rabaa in dalka aan soo sheegno dalka kismaayona waa la dhahaa xamarna waa la dhahaa boosaasana waa la dhahay garow aqaldamin madaxweynaha kismaayo joogo hadduu arko inuu barnaamijkiisa shalay si u socotay nabadda u jirto ayna dhici karto loona idmado in shaqadii ay socoto madaxweynihiina uu yahay jubbaland inuu qabto wax u diidaayo intuu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya wacay axmedow ma qaban karto doorasho ma dhihin horta ma dhihin su-aashan aad doorashadii guddiyadii loo magacaabay ee loo idmaday miyaa laga joojiyey shaqada horta aniga waxaan rabaa kuwarsadas maya guddiyada miyaa laga joojiyey maya guddiyadii baa shaqadii wada marka guddiyadii baa soo saaraya madaxweynayaasha waa supervisory bes waa supervise garaynayaan wayna guide garaynayaan wayna hogaaminayaan guddiyadii waxa wax wado maaha madaxweyne axmed maaha guddiyadii baa soo saaray guddiyadii shaqadii qabsaday guddiyadii yaa wado guddiyadii wax meel laga joojiyey shaqadana aniga ma arkarta adi aragti laakiin way sheegaysaa kama hadlin maya adaa ka hadlo waxay ku tiri waa socotaa doorasho ay ku tiri sharciyada salka ku haysaa aan ku sharciga ku haysaa ha sharciga waxay sal ku haysaa baarlamaankii baa ansixiyey madaxweynihii madaxweynaha ogolaaday guddiyada shaqadooda ilaa hadda lama hakelin waxaan ka hadlaynaa xildhibaanid waxay tahay tilaabo kasta oo maalintii madaxweynuhu uu go'aankan qaatay oo uu ku joojiyey awoodaha ra'iisul wasaaraha tilaabo kastoo ra'iisul wasaaruhu laakiin awoodda guddiga doorashada kuma jirto kama hadlaynaba maya waxaan ka hadlaa prime ministerka marka hadda prime ministerka wixii prime ministerka laga joojiyey waxaa ku dhex cadfanaa adaan ku warsana waxaa ku dhex cadfanaa isagaa doorashooyinka madax u ahaa oo howlaha doorashooyinka guddiga doorashada waa madax horta electoral commissionka aqaldami waa madax bannaan yahay mar hadduu madax bannaan yahayna ayagaa wadana shaqadooda prime ministerkana waa u ogol inuu shaqada wato madaxweynihina waa ogol yahay horta faata adiga laakiin shaqooyinkii kale ee howlahoodii kale dhexdooda ahaa oo hoose waxna waa socdaan waxna dee wixii mataqaan si u socdaan arkeenaa laakiin wax hadda aniga oo arka cillada oo kala hagsan oo kala irdhoobay oo dadka ku baaba'ay adigana ma haysan ma hayo khilaafku dabcan waxaa sheegtay inaan wahayn khilaaf sida u weyn marka inta yar tahay adigu aad aaminsantaha ka soo qaadno ma ra'iisul wasaaraha ka leexday waajibaadkii loo igmaday mise madaxweynaha ayaad is leedahay waxa uu qaaday tilaabooyin bannaanka ka ah xeyndaabkiisa sharciga wallahi niyo su-aashaas waxay ku ficneed inaad warsatid qofka ku habboon oo waxaad oga qaaday xilka saas iyo saas aniga la xilki ma qaadin ani madaxweynihi mi aragtidaan kaa leedahay maya aragtida waa khaldanaas haddaan iraado maya inna bacda danni itmun maya aniga nin wadaada waxaan ahay diini rajul diini mataqaana inta hadda ka hadlayso kale ka mid tahay maya waxaan ka hadlaayo waa inay noqdaan wax aniga aan ogaho oon aqaano oon aqoon u leeyahay dastuurka ii sheegay lama cus dastuurka ii sheegin kama jawaabi kari wax oo mataqaana madaxweynaha prime ministerka ay isku waxaad gudbeen kama jawaabi kari aan kaba soo qaadno sida aragtidaadu ay tahay in khilaafku uu u yahay mid aad u yar beesha caalamku waxay muujiyeen mowqifkooda ku aadan arrintan waxayna si cad u sheegeen inay taageerayaan dadaalada ra'iisul wasaaruhu uu wado miyaan odhan karnaa hadalka waddamada beesha caalamka qaarkood oo maraykanka uu ka mid yahay waxa ay farriin cad iyo digniin u tahay madaxweynaha twitterska iyo whatsappka iyo facebookyada waxa ka socda oo dhan ogow wax bulshada mataqaanaa lagu marhabaabinayo dalkana dagaal baa lagula jiraa in uusan nabad ku soo noqon warka dowladda maraykanka ka soo baxay warka maraykanka ka soo baxay waa kii uu dhahaya caasimadda addis ababa beri la qabsanaa adiga maraykanka iga dhigin sidii mataqaanaa cir ka soo dhacay maraykanka waa dowlad aniga lamid ah same state baan nahay United States of America and Somalia are member states of the United Nations isku mid baan ka nahay waa sidaas dalkayga anaa u madax bannaan I got my own sovereignty aqaldamin anaa waxaan qabaa madax bannaanideeda qarannimo ee Soomaaliyeed ninna iguma soo faragelin karo safiir aniga aan dhihi karo beri iska baxan tag dhihi karo inuu yidhaho mataqaanaa ila safiir baa yidhi midda kale state department markuu leeyahay wuxuu u dhahay si asluuba oo wanaagsan ayuu u yidhi waxaan jecelnahay in barnaamijka prime ministerka loo idmaday in loo mataqaanaa lagu ilaaliyo loo daayo aqaldamin amba waa dhihi lahaa haddaan amba hadda madaxweyne oo aan ahaan lahaa mataqaanaa buurfuul aan ahaan lahaa
waa dhihi lahaa warnimayo sida shalay iskugu doorateen iskugu wada waa dhihi lahaa si aan u ilaaliyo nidaamka aan u malayn karo laakiin berri markaan arko inay baasha isku dabaqayso haddii aan raba inay isku dabaqdana waaba saan raba ninkii walna aragtiga baarqabka la saaray waa saan raba soomaaliya inay ka noqoto ha waalato ha burburto anigan aan subax walba iraada mataqaan waa dhex jooga ogowna soomaaliya dan uguma jirto state departmentka saan yiri iyo safiir hebel baa saan yiri dan uguma jirta waxay dan ugu jirtaa in madaxweynaha iyo prime ministerka iyo golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo ummadda soomaaliyeed ay ka midoobaan horumarinta iyo daryeelka shacbiga soomaaliyeed maanta tabaaleysan ee abaaraha iyo biyaha ay mataqaana ay baabi'inaan xoolihiina waa dhammaadeen dadkiina waa dhammaanayaan haddaan maanta dhan isku celin aniga adii cabdullaahiyow oon dhinaano safiir hebel baa saan yiri safiir heblaaya saan tiri it doesn't make sense at all for the development of Somalia runta kuu sheegaya maxaad usoo jeedinaya ra-iisul wasaare Roble waxaan usoo jeedinayaa waa nin runtii horta aniga intaan ka aqaano nin aad u fiican oo mutadayira oo degoon oo qabow oo runtii ixtiraam badan baan aniga kulleed ku aqaanaa una malayn maayo de ilaa hadda aragtay wax afkiisa ka soo baxayo badanaa waa asluubaysan yihiin waxaan qabaa shalay hadduu qof ku abaal gashtay oo ay kaa dhigay inaad noqotid the prime minister of the federal republic of Somalia haddana maanta inaad xurmadiisa siisid oo tira ilkiina mataqaanaa iyo carabku waa isqaninaane haddii wax naga dhex jiraan sideen u xalinaa ummaddan aan u badbaadinaa waxan inay ka timaado haddii ka imaan weyso haddii dad kale ka timaado inay isla qaataan waan aaminsanahay anigu rajib duuniyan u aqaanaa isagoo hadlayo wuxuu yidhi madaxweynihii hore maya fiiri wuxuu dhahay qofka haddii carada ka keento wax walba waa ka soo baxaysaa haddaba sawirka dhabarkiisa ku dhegana ma yaallo way fan soomaa waxaa dhici karta asaga inuusan qaadin waxaa dhici karta inuu ka xunyi waan hubaa maxamed xuseen waxaan aaminsanahay kurada yararka meelaha carcarada iska dhex shaqaynaysa inay iska fujisteen asna oo aad uga xun yahayba runaan kuu sheega sideedaba waxaa wax khariba dadka waxaa dhici karta oonu hubaa maxamed xuseen Roble naceeb u qabo maxamed cabdullaahi farmaajo oo shalay prime minister u magacaabay masawir mataqaana wuxuu yahay ma fujinayo mana sameeyna anaa hubo 100% haddii madaxweynihii hore uu yiri inuu sawirka fujiyo wuxuu dhahaa af soomaaligii baryahan mucaaradka iyo dadka dhalinyarada doqon bagaratadoo dhan inta doqon bagaratadoo dhan ee garaadkooda aad u hooseeyo dhan qowlaystada siyaasadda mataqaanaa yaa ujeedaa kuwa aad sheegayso wax magaratada iyo waxaan ku iri inta ku hadaaqaysa madaxweynihii waqtigiisa dhammaaday oo dhan haddaba ku dhaha runtan kuu sheega aniga ma qari waxba aniga been kama sheego waa qowlaysato siyaasadeed ee runtii danley siyaasad ku ah rabtana inay bulshada almiira ku soo jiidato inay tira madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday madaxweynaha mataqaana xilligiisa dhammaaday madaxweynaha aan hadda jirin hadduusan jirin muxuu joogaa iyaga musharaxiinta ula jeedaa aadan ani marka maya wadaan dhahoyo ani waxaan ku iri maya cabdullaahi waxaan rabaa aniga waxaana dhihin hayga dhihin ula jeeda haddaad tirahayd ani qalbigeyga ka hadlaysaa dabcan waxay kamid yihiin qalbigeyga ka hadlay ani siyaasiyiin qowlaysataan ku iri waxbay raba nin baa yiri aan ku iri nin baa yiri oo yiri ciidamada qalabka sida hala kala diro ku noqon kara jago dhan madax uga noqon karo in dalka burburo oo dib u heshiisiin la sameeyo dib u heshiisiintaas kaga soo baxan raba ra-iisul wasaaruhu inuu raaligelin ka uu ka bixiyo ayaa ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha arrinta uu yiri madaxweynihii hore ayagaa garanaayo sida ayaga gacmahooda hoos ugu dhaqanayaan shalay ayagaa ismagacaawday maantana ayagaa wada shaqaynayo wayna wada shaqayn doonaan dalkana doorasho way gaarsiinayaan taasaan aaminsanahay ma hadal sharciya inuu yidhaahdo madaxweynihii hore ra-isul wasaaruhu mise waxaad leedahay waa hadal sharci hadal laga qurux badan yahay sharci darra hadal laga qurux badan yahay inuu yiraahdo waa ugu dambeyn khilaafkan waa markii labaad uu soo laabto halka maxaad u aragtaa halka waxaan u arkaa in runtii odan dhabaclase u kala sarreeya baa loo kala qaadaa dalkan nabad buu u socdaa sharaf bay wada leeyihiin madaxda ummadda mataqaana maanta hogaaminaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa adaa markhaati ka ah dalkan waxqabadkiisii 4 sano hadda uu joogay iyo sanadkan ee broseska lagu jiro ee soo galo 5 sano noqonayo waxa adi markhaati kaaga ah 36 kun oo ciidan oo maanta aan leenahay qaranka sida oo mishaarkoodii $260 laga gaarsiiyey moobilkaas ugu dhaca adaa markhaati ka ah 7 kun ee shaqaalaha Soomaaliyeed maanta rayidka ah nin walba telefoonkiisa ugu dhacda lacagtiisa hal maal kama maqnaani inta xildhibaan maanta baarlamaanka jirtay shalay anagoo 9 bilood leh dowladda naga dhacday dowlad kasta oo dhacday 9 bilood 8 bilood 10 bilood anagoo kule ayay naga dhacday hal maalin hal bil ma qadin 6 lagu qaatay 6 la isku siiya waa dadka developmental programmeska waddanka ka jira ee maanta iyo sumcaddii maanta uu dalka leeyahay qayyabkii iyo maqaamkii ummadda Soomaaliyeedna meel buu soo fuulo ah at least xataa inaan dowlad ay soo baxday dhigi karto war safiirow dalkayga kuma haboonide raalli ahow maanta dowlad heblaayoy qof kale u soo magacaabo qofka ma wada shaqayn karnay ma dhici taariikhda waa ogtahay wax dhacay maaha inta aan burbur ka soo noqon macna dowladda waxay way dhacday mar laakiin dowladda hadda dowladihii ka dambeeyay oo dhan dowlad BNG la siinin safiira ama nin madaxa ama nin ciidan ah
oo dhacday oo layidhi dalka kuma habboonid ma joogi karta iska bax dowladdiisana loo sheegay layidhi ilaa wax sharci waay waa Geneva Convention in qofka la dhihi karo walaal soo shaqeyn karo marka intaas qofkii qabtay waxaa ila habboon shacbiga Soomaaliyeed maanta dhagoolo maaha in doolana maaha mataqaana garasho darana ma haysato way og yihiin maanta wuxuu u qabtay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo shaqada uu qabtay iyo dowladdiisii iyo nidaamkeedii wuxuu ku socday xasan cali khayre ilaa iyo wuxuu soo waday to the last minute 4 sano iyo gogo waa la soo dhamaystay adaana markhaati iga way fansama waxayna noqotay historic dowladdii ugu sabarka badneed ee madaxweynihii barnaamijka soo wada shaqeeyo 4 sano iyo xogaa soo wada shaqeeyaan way fansama maxamed cabdullaahi farmaajo sabar binaadam qof haddii la siiyo inta ugu badneed oo sabray haddana umalayn maayo in sabarkaas uu baaba'as maqan yahay halkan waa dhammaana doorashada way dhici nabadu way dhacaysaa nabadanaas la nuugala waaye wax ka halaabay dalkan habeeraata ma jirto waxaan rabnaa keliya hal shay walaalaha musharaxiinta ee raba dalka inay madax ka noqdaan iyo annaga baan ku jirno musharaxiin baan nahay xildhibaan inaan soo noqono ummaddan inaan u turno oo wax ilaahay raalli ka u sameyn min doo idiin sheega cabdullaahi maanta annaga raqiibi catiida noo saara garbax adaana markhaatiga wax walba oon dhehen ayagaa qoraayo wax walba oon laakiin u sheegna afka aan dhiraano ummadda shacbiga gaarsii laakiin keeni kara inuu qof naftiisa ku waayo oo dhiban kara oo baabii kara ama guri ku burburi karo ama uu qof dhibaato ku gaari karo ku dhaawacmi kara oo wax ku adeegan waayo huwa اللي مسؤول أسا مسؤول أما هي اللي مسؤول أما إذا مسؤول دقائق بقري قادنا أنا قلت هذا أضحى معي بريم كان قيامة أسكورة تقرأ واحد بدنا أجنها هذا أنا أجها أنا رجع قاركود أنا قانبة ما أنت لا هبر برتدور هذا عضو هبحه هذا وادسنا ويلنا وسمعنا waxaan ogahay qiyaamaha markaas kugu tagno kala tan kala xisaabiyo anigu waxaan aad uga xumaanahay inaan gadaal soo fiiri arko rag qaarkood oo dhigta lagu dhagayo naarta loo wada markaas ma dhihi kariyo awood u bali ilaahay ku wallahi waa aqaana kuna waxa isku soo jiri jiray baarlamaanka naarta liigay ma rabo ma dhihi kari marka waxa fiican in maanta almiino inaan wada aadno wanaago ilaahay kulliga jannada wada geliyo ummadana u naxariisano xusn khaatimana nagu dilo shacbiga anaga aan u gargaarno aan raaciye waxaa aad u jeediyey ra'iisul wasaaruhu madaxweynaha oo uu yiri wuxuu isku dayay inuu afgambi ku qabsado xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska golaha wasiirada eedaasu misleeda madaxweynuhu mid uu qaadan karo cabdullaahi kelmadda boqol jeer aan damcay inaan dadka ka dhaadhiciyo adaanse kuu sheega caawa encyclopediyaha ama dictionary-ga inqilaab la ifasir bisani nin jaga horta inqilaab waxaa sameeya nin jaga raadinayo in dadka waxay markaan ku dhahayo dadka meelaha qaarkood in dhow garay ka yihiin markaad dhehaysa afgembiga qofkan samaynaya afgembiga qofka waa inuu ku raadinaya darajo inuu helo muxuu darajo helaa darajada ugu sarraysa dalkaasaaba haystee hadduu mar haysto suu darajo kale ugu raadsanaya inqilaab marka ما هو قفك مقطع وير مع قدمتك عذاب إلى فهم هايبا قفكي جقد أقص الرئيس الدلك نك هيسا سوء انقلاب قصة مينا وجقد الأولى سنة جقد الخلق بقى العين مش هيك تا أدوك سمكو أرت أديك من دل بضحك انقلاب سمينا أصل انقلاب واحد ما مسنت إسكودي إنه جرو مدحوين إنه حفيز هبيراته انقلاب ما حقل دمي ما إسكودي أنكوري ما إسكودي oo xafiiskaasi kula wareego ma isku day ba haba araab ku saxayaba isku day marba daad tira kula wareegida daad tira inqilaab kale u socotaa ma aaminsan waxaan rabaa inaan kuu sheego hal shay waxaan rabaa inaan kuu sheego madaxweynaha jagada ugu sarreysay dalka ayuu hayaa waana astaantii midnimada qaranka Soomaaliyeed kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibbi oo barnaamijka dabagalka wararka igala qayb galay Cabdiraxmaan aad baad u mahadsantahay